gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo ayaa kormeer ugu hurgalaya xaaladda abaarada ee ka taagan deegaanada Buuhoodle ku galaabixiyay deegaano hoos yimaada gobolka Buuhoodle waxaana gudoomiyaha gobolka Togdheer sidoo kale uu 40 booydood biyo ku wareejiyay gudoomiyaha degmada Woodwood waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha degmada Woodwood waxaana ka mid ah hadaladoodii waxa alxamdulillah maanta aad iyo u bogaadinayna mar haddii Woodwood sawirka laga haysto iyo sawirka maanta muuqda aad buu kala duwan yahay marnana idinka gacan lahayn mar walba waxaan isku daynay inaanu gacantayda ay soo gaadho area Buuhoodle Woodwood waxaan isku daynay inaan dadkan walaalahan ay la wadaagno ama aan la qaybsano dareenka xanuun kale abaarta laabana kulli gobolkan iyo degmadanba cagtoo ku badanays والله يمن دونا مدحنا وين قد بيسا سهم بام سهم وصل وسيلة سكسي بدنا وحنا كذي كفلنا إن تدك وصل ويساق إن شاء الله بولسيجا مدحونا السراير وحكم ذا إن أي أمضوا بيه شو والرجال يقول بدنا دولة يقول بدنا إذا سمعنا الله سوما شر الرجال يقول بدنا سنسول هل كان ما أنت أفرتم بولدو بيه أيام إذا كوب الدوسين نقول أبارا الدوسين هنا أفرتم كاب بولدو أنت مربحين تبلي تكسر عني dadka sida u kala baahan oo ku filaysiin doonta insha Allah gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane qabyatire waxaan ka gudoonay booyadahaas 40 booyadooda ayaanu ka gudoonay lacagtoodii inta labaad gudoomiyaha waxaan leenahay mar haddaad maanta u urtimi qabyatire markaad triga taagto baad qabyatire rasmiya geediyo dhaadheer ba soo guunay geedar marka ka soo dulguunay waxaan degnay meel ka shaqeysa Woodwood oo leedahay dhuxun ku reebli waxaan oo dhalay 16 riyaal 9 riyaal naga baxay waxay u dhaxaysaa geel xamarka iyo degmada Woodwood waa dhulkii dadkii deegaanka ay ka qaxeen abaarta iyo biyaanta uga qaxeen wadarta gurigii waa hawanaya dadkii la markuu biyo waayay wuxuu la calay dadkii iyo dunyadii meel biyo la caray ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan waxa uu soo kormeeray ceelal biyoodii laga hirgelinaya deegaano hoos yimaada gobolka Buuhoodle Ibrahim Faarax Macaan iyo Cable TV Burco